sanadii Zidane oo si dhaba u cadeeyay inuu ka fadhiistay kooxda uu tababarayay ee Real Madrid. sanadii Zidane oo qabtay saxaafadeed degdeg ah kuna qabtay dalka Spain isaga iyo mulkiilihii naadiga Florentino Perez. isla Perez oo halka ka cadeeyay in soo dhiibtay istiqaarada sanadii Zidane. isla hadalkii shirkana waxa uu daayay mulkiiluhu sanadii Zidane kadib marka uu soo qaaday 3 koob oo isku xigta Mr. sanadii Zidane, isla markaana uu doonayay isagu nasasho nafsaaniya inuu helo kadib markii uu 3 sanadood soo dadaalayay Mr. sanadii Zidane. Mr. Perez oo isaguna halka ka cadeeyay inuu ka murugaysan yahay istiqaarada sanadii Zidane, kaas oo shariifku ka heli jiray marka uu ciyaartooyga sanadii Zidane. bal maxaad u malayn haddaba isaga oo koox dhan u tababara ah oo mulkiiluhu wato arrinka uu ka aqbalay mulkiiluhu uu Zidane soo dalbaday. bal haddaba si kastaba ha ahaatee waa uu ku taageeray qaraarka uu gaaray. aad iyo aad baan ugu mahadsan yahay ayuu aliyay mulkiilihii muddada uu joogay naadiga Mr. sanadii Zidane. waxaanu Zidane ku dardaarmay inuu sheegay inuu tiimku u baahan yahay isbedelo fara badan si uu helo guulo kale ama uu hanto. isla Zidane oo cadeeyay xilliga uu kooxda la joogay iyo xilligan uu qaatay istiqaaradu inay ahayd waqti ku haboon inuu qaatay istiqaarada uu kaga fadhiisanayo kooxda uu tababaraha u ahaa kuna qanacsan yahay muddadii uu guulaha badan soo hooyay.